oo ah saad u aragtaanbo ciidankii qaranka Soomaaliya kamid ah saraakiishiisii gobolka Gede gaar ahaan ka sii ahaa ragii Ahlusunna wal Jamaaca gobolka Gede la baxay maalinka ay shabaab wadanka soo galeen oo ka bilaabeen xabada meesha loo yaqaan geedo gobolka Gede masaajidka baar dheer ku yaalay xabadii halkaas aan ka bilownay oo doolo ku tagnay oo ka soo bilownay oo doolo ku imaanay oo boolaha ku imaanay garbaar ku imaanay boorruba ku imaanay oo baar dheer ku imaanay intaas halgan dheer oo 12 sano ku soo jiray ayaa saaka waxaan halkan ka gudbinaynaa cabasho la qabsatay baahiyeed oo naga soo gaartay xukuumadii dawladda federaalka qaybta militariga ciidanka ah cabashadaas waxay tahay waxa dhacday arrin lama filaan ah oo maxaan ku raadayay la arkin weligeed oo la maqlin oo la dahaasho ah ay u sameeyay ninkii taliyaha guutada gobolka Gede ciidamada ka xukumay oo la lahaa magaciisa Korneyl Sanka waxa dhacday anigoo waxaan ka sii mid ahaa gaar ahaan ragii maamulka ahaa oo degmada baar dheer laga qaaday dawladda federaalka intay u soo dirtay saraakiil sarsare gudoomiyihii maxkamadda sare xeer ilaaliyay guud ee dawladda Soomaaliya generaalkii qaybta Bagmadoobe generaal Bagmadoobe ninka la yiraahdo Cabdixamiid kii oo lugta janankii lugta ciidamada Soomaaliya madaxa musuqmaasuqa iyo qabiilka iyo maxaa ku raadayay cadaalad darrada gobolka Gede ninka ku haya oo guutada xukumay oo Sanka la yiraahdo ayaa waxay noogu imaadeen degmada baar dheer anagoo shaqeynayna oo maamulkii degmada baar dheer ah meeshaas ay amar nagu siiyeen oo diyaaradii laga soo diray Muqdisho laga qaaday waxaana la geeyay meesha la yiraahdo Muqdisho waxaan baan lagu saarnaa oo ku xirxirnayn muddo 4 bilood iyo bar ah annagoo xirxirano wali xabiska ku jirno ayaa waxa laga qaaday xilkii waxa la yiri waa la inbedelay qofka bini'aadanka markii la bedelana waa in loo helo danib lagu bedelo oo la yiraahdo dambigaan aad yeelatay kiiskaan aad yeelatay oo xaqaan u yeelatay oo lagu bedelay ayadoo wax kiisa iyo wax dambi la soo hordhigin baa la bedel baatiin intaas markay dhacday kadib yaa waxa dhacday in la yiraahdo dawladii adinkii xukuntay shalaba haddana soo xirxirtay meesha ugu xirxirtiin yaa wixii maadaama maamul ahaydeen in badan soo shaqeynayeen xaq ma leedihiin muwaadiniin Soomaaliyeed antiin waxaan insiinaynaa wax la yiraahdo darajo oo ku abaalmariyo linkuna xal mariya la insiinaya annaga oo maamulka dhamaa oo baar dheer ah oo qof laga tagin ah maadaama anaga dawladdaanada wax xirnayn oo dawladdaanada wax gacanta lagu hayo ay tahay waayahay waa ku faan baan niri ma ana doodin mana aan qabiltamin waxna ma ana sheegin mana aan buuqinin meeshaas marka waxa weeye waxa ka dhacday sidii aan u sugeynay darajadii iyo wixii noola ballan qaaday yaa waxa timid annagii maamulka oo isku guriga ahayn oo madaxda ahayd oo meesha wada deganeen in la kala faquuqay in la kala soocay midabta koor meesha uu ka dhacay jinsiyad la dirir uu ka dhacay asiirad ay ka dhacday wax uu cadaalad darro ah wali adduunka iyo caalamka wax laga maqlay iyo lagu arkaan ahayn in meesha ay ka dhacday cadaalad darradaas rag ay ku dhacday anigu waxaan gudoomiye ku xigeenkii ahna arrimaha bulshada degmada baar dheer magacayga Xuseen Cabdullaahi Xalana la yiraahdaa hadduu meeshii uu qabiil imaaday oo dadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u wakiilatay howlaha gobolka sida ka socda hadda gobolka Gede ka socda ay u wakiilatay oo haddii qabiil ahaan la yiraahdana qabiilkooda ay yihiin niman reer Kooshin ah iyo niman reer Waasbuuleed haddii shakhsi ahaan la yiraahdana la kala yiraahdo ina kulana ninka la yiraahdo iyo Maxamed Ugaas Xaashi ninka la yiraahdo iyo Korneyl Sanka ninka la yiraahdo saddexdoodaba isku difaac barnaamijka cid maamuleysay oo ka shaqeynaysa dawladda ay u wakiilatay ay nimanka ayaga qabiil ahaana ay sida ayada u yihiin magacyo ahaan noocaas loo yiraahdo waxa agaasimaya barnaamijkaas oo faquuqa iyo qabiilka iyo cadaalad darrada jinsiyad la dirirka midabta koorka cusuriyada intaas la nimanka ku kacay oo sida uu fashilka u sameeyay oo nimankaas yihiin waxaan go'aansanay sida ayada ay wax u maamuleen oo ugu tilaab qaadeen inaan u fashilino una soo bandhigno cabashadaasna caalamka iyo adduunka aan u bandhigno oo meel kasta saxaafadda iyo miidiyaha aan u soo marino si loo wada dhageysto oo loo wada daawado
إلهي سبحانه وتعالى ما أصلناتي ساك مشان أسقوي ماني وأصبح ثلاثة بشي تضبط هذه اللي بدو يكوني لبعتنك أسكرت قرن كيسوماليات بانهاي حنو ملاينا إياه كوية 10 سنة هالجندر كوسو جرني وحلاقة شكاين كرام حقبنا واحد كرام وساق ماشي لوسو كوي كرا الساعين كان نوها يستعد النمذا إيوه مدة ولا النما أودن بيسي هذا كونال سانكا لابد يكون توني لحدي بالله مقعاوي 3 درجة يوكر مريا و4 سنة كو 10 سنة من هالجندر كسو جرني دبلا نهاي سيدي أيضا هاي بوكو غناعسين هاي أنت أسكرتها وبلا حقوق الآن تلا عررتي لما رضوا ذينا دت شبل هايستان وحلا حسابي كرماهن مدى الصومالية مالو البيت شوغان ووصل رئي مدحوينها الصومالية دادك قبلك الجداد وصو حل سارتي ومدى الصوماليات قاسة وليبا باشا سيدا كتربان وين باك دعي وين فقوقين وين كرسارين ديتو أسكرني ما إيتاي هدي مد الصوماليات إيتاي وقودها أي حن عواشا كناهي نقل يا كورال سانكا iyo maxamed ugaas xaashi iyo ina kulane waxay noo geysteen darajadii u dambeysay hadda laga soo qaaday oo 61 ah oo gobolka ku soo dalacday madda Soomaalida nolol waa wax lagu fartirin karo hebel iyo hebel la oran karo way waxaan qarinayna ma gacadaya maanta anigu ah askari xooga dalka Soomaaliya ka tirsan inaan maanta adeecad iyo miidiya istaago waxa ay ugu kalifay inaan cadeeyo anoo og xeerka uu leeyahay askari iyo wadada uu leeyahay sharcigiisa garanayo markii aan arkay sharciga aan qabanin madaxda dalka iyo taliyaalka ciidanka iyo askari ahaan anigu midkii qabanaya ayaan garan waayay maalin walba waxaan arkaa askari maxkamad saaran taliyiisu dilay la leeyahay shacab waxa bad ku dhufta la leeyahay maxkamad musaaraya la leeyahay waxa iga su'aal ah aniga hadii aan ciido wax u dhimaka askari ahaan inay maxkamadii qabato waan ogahay sharci qabto haddii anigu oo askari ah oo taliyahayga dambi iga galo miyaana xaq u lahayn in maxkamad la ii saaro inuu maxkamadda meesha isaga maxkamadda qabay waxaan cadeynayaa in maanta nala ku kalifay in dawladda Soomaaliya oo anaga u dhimanayna oo milkiilaha u ahayn anigu waxaan u maleeyaa askari xoog dalka Soomaaliyeed waxaan ku biiray 2007 bishii koowaad iyo subax saaka 4 dawladood baa igu korlacay inaad dhintamo ee kasbayr ma leeyahay milkiilaan wahay ilaa wadna in xabad ridaan raba kuwii aniga igu yimid in ay maalin walba beeksi sidaas ay igu sameeyaan beelahaan ay igu sameeyaan shakhsi ahaan noogu sameeyaan shakhsiyaal ayagoo adeegsanay dawladda waxay adeegsataa dad fikirkooda uu saxalaad ahayn dad aqligooda uu safiyoobay dad muwaadinimadooda aysan run ahayn oo ka abuuray xasarad iyo qalqal iyo dhibaato iyo dhabarjibin iyo isla ceeb ciidamadii gobolka gada jooga ku abuuray waxaan anagu halkaan ku soo koobaynaa kuna soo gudbinaynaa cabasho ka dhan ah maamulada iyo taliyaalka ciidamada hadda gacanta ku haya gobolka gado inay dawladda Soomaaliya si jawaab cad uga bixiso assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh cabashayda waxay tahay xaquuqdii aan ku lahay gobolka gado ama ciidamada ku lahayn oo dhabaweyn waayo waxa jira wax la yiraahdo organic ciidan dad baa hadda la soo dalacsiyo darajooyin la siiyay baa leeyahay heer maamul waa kaga jiray waa laga saaray rag Cismaan waa laga saaray maxaa miyaysa maamulka la bedelay kamid ahayn hadii organic ciidan ay jirto ururka baahnayna taliyaha jooga maxaa loo soo marin waayay faylkiisa dalacsiintiisa iyo mudan maxaa loo marin waayay kambuur ruuba jooga maxaa loo marin waayay wiil baa jeebka ku watay balaxa waa isagoo jaaga maamulay nin walba jeebkiisa aadar ii sheegay lambarkaadii yiri inaysan markuu organic ciidan waafaqsanaysahayn wax sharci waafaqsanaysahayn xalaal ahayn tanayada way mid aan ka cawaray